dhayal baa lagu sii deynin ama ninka hablaha iyaga ceebeeyay ee halka isagu istaagay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu arki waayay waan arkay ee wasiirkii waxbarashada wuxuu arki waayay ana arkay ee wasiirkii diinta iyo waqafka wuxuu arki waayay waan arkay mil korkii lama dhayo waanu cadeyntii baan uga fadhinaa. In the name of Jesus, baptize them with your presence, O God. Let them hear your voice saying this is the way, and they will walk in it in the name of the Lord. Barwaco University and the fact that this institution is established in Somaliland speaks to the goodwill and its commitment to women. Our mission in Barwaco University is very simple: to empower Somali women to become professionals who drive development in their communities. geedka ku yaala barwaaqo ee astaantu ah kii Bible ku qoraawa waxa kale oo raadinaysay wasaaradda diinta iyo waqaf Soomaaliland raadinaysay leedahay baaris baa la gelinayaa maxay astaanta dhan ee barwaaqo ku qoran ya astaantana waxay tahaba astaantana aan arkayso يا واحد تهيبا أستانتا وابتي بايبل خصوصا وريت ها بالهالكا فيري بالهالكا نفيري ها بالمسبحي يا أرض أرجع كوانا يا وحلا هلا يا مركا ولا ريالو محيي waxa laga hadlayo baaray maxay wayba caddahay meeshan in masiix lagu faafinayo wayba caddahayba marka maxaa laga hadlaa sheega waxa laga hadlaa maxay inta ilaahay isaga baqdaan qeyra Jabaankan iyo anaga naloo socday anaga la yeelaa maahe waxa weeye wax kasta oo siyaasada wax ku kala qaybsanna waxaan isku qabsan karnaa laakiin shariicada islaamka isku ma qabsan karno waanu rabnaa maxkamadaanu la tiigsanaynaa hadi mayno waa loo hadi laga reebay noqonaysaa ama ceebtu waxay raaci doontaa hablaha iyaga iyo jaamacadayada ama isaga raaci doontaayo wax kale ku raadinayo ayaa la ogaan doonaa hadii Ilaahayna gaarsiiyo baa raadinaya waxaan u xugeysanayaa maalin walba ka daba hadlaya waa dad dalayde qofna geed banka baxay maaha tii hore la aamusay la daday la soo daayay xorriyadiisii uu qaatay maanta haduu soo markiciyay anaguna imkaan diyaarna mana xari doona xaqiiqata dad haraya ma dhihin waayo deentaydaaba guur seegaysa inta diintayda soddon jira laga saaray oo waxa loo keenay gabadh maxay tolay dhaqankii ka bedelaysa ma socon doonto diyaar baanu nahay waanu tafaxaydanahay ma hari doono loobin baanu sameeynaa wallahi hadi mayno oo billahi hadi mayno tallahi hadi mayno meel kasta oo joogan ama maxkamad lagu saarayo ama maxay to media uu iska soo haraya waa wiig hore la dhameeyo waxaan la wadwado oo wax iska dhamaado wax walba Soomaalidu wiig bay ku dhamaysaa laakiin rasmigu waxa weeyaan qofkii afkiisa ka yiri tin ninkii keena saara baa leeyahay isagu baa saaraya hablaha yagiina sumcadood iyo karaamadooda iyo sharaftood ninkaas oo baanu haysanaa una daba taaganahay mana xari doona hadii Ilaahayna gaarsiiyo saas ku talagala halaguna seexda halaguna soo tooso hadhowta ninkii media ka soo qeylay uu iska baxaya kii maxay toolay ka raadinaya waxaana ku qaataa uu iska dhamaanaya laakiin maxaa soo haraya futiyo dul way sureeyeen annaga iyo hablaha yaga sumcadoodii iyo wixii uu xugeystay diyaar baanu nahay waanu taaganay insha Allah bidilaahi kariim wixii nooga cadaada ayaan idin wixii looga caday horta Cabdimaalig Musocdoon wuxuu leeyahay xuquuqdan anigu imika halkan kaga hadlayaan leeyahay waa talabaad wuxuu sheegay isagu waxa weeyaan wax aragtiya ee wax cadayna oo dadka yiri waa probability wuxuu ka hadlay maaha wuxuu ka hadlay wax u gaar ah oo isagu yiri waan soo taarkay wuxuu yiri kaliya ta shakhsiyadaas waa baadariyad sidoo wada ognayna waxa ku qorantay Wikipedia taasna xaq buu leeyahay inuu sheego qofka post Facebookiisna xaq buu leeyahay inuu wixii kasta ee aragtidiisa kaga hadlo taana xeer baa jira dastuuriya oo labada golaba soo maray oo sunna ah oo Soomaaliland yaala waana kamaanta halka anigu aan kaga hadlayo ana awoodaysi Cabdimaalig hadii taa lagu haysto waxay noqonaysaa in anigana tan maanta ka hadlay lagu qabsado oo berito la leeyahay yeedha maxkamadda waa talabaad hadii ay madaxweynuhu u hayo iyo xukuumaddu xeerar kale oo isaga xanibaya oo aan anagu ogeyn oo mar dambe soo baxay oo aan soo gaarin sunnaha sharciga maxkamadda waa wax u gaar ah taasi laakiin waxaanu ognahay anagu
inuu cabdimaalik ka hadlay probabilitygiisa taana fikirkiisa tahay xaqna uu leeyahay madaxweynahana waxaan si sharaf looga codsanaynaa oo karaamo looga codsanayo madaxweynihii dalka waa madaxweynihii qaranka qof kastana isagaa ka mas'uula inuu madaxweynuhu eego oo dib ugu noqdo golaha dastuurka ee qaranka ay wax soo asixiyeen